gobolka Gado uu ka mid ahaa gobolladii ugu darnaa ee ay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ayaa iminka waxaa laga dareemayaa guud ahaan degmooyinka uu ka kooban yahay horumarro kala duwan sida dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo dhismayaasha casriga ah. xaaladda waxbarasho ee gobolka Gado ayaa waayadan dambe laga dareemayaa sare u kac kadib markii tiro qurba joog ah oo ka soo jeeda deegaanka ay sameeyeen barnaamijyo loogu gurmanayo waxbarashada gobolka si dhallaanka soo kacay ay u helaan fursado waxbarasho oo tayo sare leh. goobaha waxbarasho ee ka faa'iideystay taageerada qurba joogta ayaa waxaa ka mid ah dugsiga sare ee Amiir Nuur ee ka dhisan degmada Garbaharey, kaasi oo maraya marxaladii ugu sarreysay marka la eego culumta kala duwan ee lagu qaato sida 11 maado oo ku baxda saddexda luqadood ee kala ah Soomaali, Carabi iyo English, iyo sidoo kale culum kale oo dheeraad ah sida barashada kombiyuutarka, macahad luqadda Ingiriiska lagu barto oo khaas ah, qayb lagu barto cilmiga shaybaarka oo ay ku dhan yihiin qalabkii caafimaad ee loo baahnaa ayna ka howlgalaan macallimiin gaar ah oo loo soo tababaray. waxaa intaas dheer iyadoo ay ka soo qalinjabiyeen dhowr dafco, ardadii ka qalinjabisayna ay noqdeen kuwa kaalinta nolosha meel weyn ka galay, iyagoo isugu jira qaybo jaamacado aaday iyo qayb shaqaale wax soo saar leh ah. sidoo kale waxaa jira goobo waxbarasho oo la mid ah Amiir Nuur oo ka jira deegaanada uu ka kooban yahay gobolka Gado, inkastoo aysan ii suuragelin inaan booqdo goobahaasi si aan u soo bandhigo muuqaalo la xiriira sida muuqaalada idiin muuqda oo ah dugsiga sare ee Amiir Nuur ee ku yaala magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado. dhinaca kale waxaa maanta loo dabaaldegay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay aasaaskii iskuulka Alqalam ee sanad ka hor laga furay degmada Balad Xaawo ee waqooyiga gobolka Gado. iskuulka oo ay furitaankiisa kaalin weyn ku lahayd hay-adda waxbarashada iyo horumarinta ee Alqalam ayaa la furay kadib markii la ogaaday baahida loo qabo hirgelinta iskuulkani. munaasabadda dabaaldega ayaa waxaa ka qayb galay dhinacyo kala duwan oo isugu jira qaybaha bulshada iyo xubno ka socday maamulka ka arrimaya degmada Balad Xaawo. kasoo qaybgalayaashii munaasabadda ayaa muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin furitaanka iskuulkani iyo ka hirgelintiisa degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado, iyagoo baraarujiyey in fikradaha lagu horumarinayo goobaha waxbarashaduna ay halkeeda ka sii socdaan. sidoo kale gobolka Gado ayaa degmooyin iyo deegaano ka mid ah ay ka jiraan horumarro la xiriira dhinaca dhismayaasha, iyadoo gobolka iminka ay ku qulqulayaan kambaniyo maalgashi oo ku loolamaya dib u dhiska gobolka, kuwaas oo ay wataan ganacsato iyo qurba joog ka soo jeeda deegaanka oo ku baraarugay jiritaanka fursado maalgashi oo ka jira deegaanada ay ka soo jeedaan. kadib markii al-shabaab laga saaray magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado kama jirin horumar dhinac kasta leh, waxaase bilooyinkii u dambeeyey magaalada lagu arkayay goobo hor leh oo magaalada laga dhisayo. kambaniga lagu magacaabo Alla Aamin Instruction Company ayaa ka bilaabay magaalada horumar dib u dhis ah, kaas oo noqday muddo 9 sano kadib ah kambanigii noociisa oo kale ah ee u horreeyey ee ka howlgala Garbaharey kana bilaabo dhismayaal dib loogu soo celinayo bilicda xarun goboleedka Gado ee Garbaharey. mar aan waraysi la yeeshay maamulaha kambaniga Shukri Xuseen ayuu ii sheegay in kambanigooda uu dhisay isbitaalka weyn ee horey loo oran jiray isbitaalka gobolka Gado, balse hadda loogu magac daray madaxweynihii hore ee Soomaaliya General Maxamed Siyaad Barre, kaas oo lagu magacaabo Jalla Siyaad Hospital, isagoo geesta kalena sheegay in hadda uu magaalada kambanigooda ka wado dhismayaal guryo fara badan ayna leeyihiin dad jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. sidoo kale maamulaha waxa uu sheegay in hadda ay jiraan agab fara badan oo uu kambanigu ku howlgalayo, mustaqbalkana uu hiigsanayo in mashaariic fara badan uu ka fuliyo dhammaan degmooyinka gobolka Gado. mashaariicda kambaniga uu ka fulinayay Garbaharey waxaa garab socda kuwo kale oo uu ka wado degmooyinka gobolka sida degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado. horumarka kambaniga uu wado ayaa bilic soo celin u noqday magaalada, iyadoo goobaha hadda uu dhisayo kambanigana ay yihiin goobo muhiim ah oo bulshada waxtar u leh. si kastaba ha ahaatee gobolka Gado ayaa iminka cagta saaray wadadii horumarka kadib dagaalo iyo diif colaadeed oo daashaday sanadihii lasoo dhaafay. waxaa naga xasuusin ah in warbixino iyo waraysiyo badan oo la xiriira horumarka ka jira gobolka Gado aan idiin soo wadno haddii aan laydmo. Shaafici Cabdinuur, Kismaayo Post, xarunta gobolka Gado, magaalada Garbaharey.